kamid tahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah. bacdi salaam, marka hore waxaan doonayaa inaan halkaan uga soo jeediyo allah subxaanahu wa tacaala mahad cayaarihii aan ku marti qaadnay magaalada muqdisho loogu dhameeyey si nabad iyo guul ah. allahaas ayaa mahadnaqa allah kadib waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo runtii tan iyo markii qabanqaabada ciyaaraha ilaa dhamaadka ciyaarahaas nala garab taagnaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hambalyadii aan lala soo daahin oo isla markii ciyaartooyda gobolka banaadir ay guusha xaqiijiyeen laga daawaday shaashadaha ayagoo isla markiiba u hambalyeynaya. mahadnaqoodaas madaxda kadib waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo sidoo kale ciidamada ammaanka oo aada og tihiin la-aantood inaan waxba noo suuro galay. ciidamada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir, ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa 12 abriil, saraakiishooda dableyda hawsha fulinaysay dhammaantood waxaan doonayaa ayagana inaan halkaan uga mahad celiyo. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxda maamulka gobolka banaadir iyo madaxda kooxda ciyaartooyda kubadda cagta gobolka banaadir iyo maamulahooda amiin, dadaalkii iyo kartidii iyo dadnimadii ay sida isku duubnida ah usoo bandhigeen. guddoomiyaha isboortiga sidoo kale si gaara ugu mahad celinayaa sida dadnimada leh oo isagana kaalintiisii u muuqata. mahadnaqa kadib waxaan rabaa inaan hambalyo idhaahdo dhammaan bulshada ku nool gobolka banaadir oo maantay xaqiijiyey koobkii kubadda cagta ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. waxaa sidoo kale aan doonayaa shacabka gobolka banaadir inaan uga mahad celiyo sida ay koox kasta oo marti u ahayd ay taageero qalbi ah ugu muujiyeen, iyadoo taasi runtii ay muujinayso gobolkan banaadir magaalada muqdisho inay tahay hooyada gobollada soomaaliya. hooyadu waxay dhashaa carruur badan, laakiin mid kastaba way nuujisaa, waxayna tusisaa naxariisteeda. waan uga mahad celinayaa marka bulshada reer banaadir inay muujiyeen mudnaanta hooyadu ay leedahay. mudanayaal iyo marwooyin, waan isugu hambalyeynaynaa ciyaartan guusha aan ka soo hoynay min ciyaartooy ilaa maamul. waxaan la rajaynayaa sida aan u soo hoynay inaan u difaacan doono sanad kasta biidni illaahi alkariim. waxaa sharaf noo ah maamulka kooxda gobolka banaadir ee kubadda cagtu inay soo hoysay guul taariikhi ah
sidoo kale waxaa sharaf noo ah kooxda naadiga muqdisho ee MCC inay iyaguna horyaalkii dalka ay ku jirto gacantooda midigta. haddii aan nahay reer muqdisho horyaalkii waan haynaa, haddii aan nahay reer banaadirna gobolladii oo dhan waan haynaa. والله ماديس كليه waxay naga rabtaa inaan difaacano oo xilli kasta oo ciyaaro ay timaado aan gacanteena laga bixin. ma filayo in mar damba diyaarad la saari doono ama ugu hoyan doono guri ka mid ah kooxaha ciyaartooyda dalka. waxaan rabaa halkaan inay soo istaagaan tababaraha kooxda. Soomaalidu waxay tiraa aqal ninkii dhisaa ka weyn, aqal ninkii dhisaa ka weyn. tababarihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey tababarkiisa inuu guusha uu gacanta soo geliyo ayaa halkan taagan oo ka dhigan guushaas dhisiheedii qofkii dhisi oo dhidhibada waas. waxaan rabaa kooxda inaan halkan ballanqaad uga sameeyo lacageed oo gaaraya $10,000 Mareykanka. waxaan rabaa amiin iyo goolhayiisa inay noqdaan dad ka tirsan laba xubnood ka tirsan xafiiskay. waxaan rabaa abaalmarin kale oo aanan hadda iska sii sheegay, laakiin maamulka oo dhan iyo annaga aan ka tashan doono inaan ciyaartooyda ayagana aan siin doono in halka ka